الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. والله سينو أكسون هاي وحي نو سودو نبات الله نو قارسية بشي رمضان المبارك. جمعها جمعيه سكوحيقا أما واكو أما واللبا وحمركا أينو isku baraarujinaynaa bishan sida aynu ku qaabili lahayn in ugu diyaar garoobi lahayn. Waxaan dul mari doonaa insha Allah 20 arrimood oo shareecadeenu ina fartay bisha ka hor inaynu ku diyaar garowno. Ilaa wixii miisaan le mugle marka aad danaynayso diyaar garow la'aantii kuma yimaado. Waa inaad u diyaar garowdaa. Hadduu waftu ku imanayo, haddii carwo iyo dhaqaale aad ka faa'iidaysanayso, qofku diyaar garow badan buu sameeyaa iyo hadday safar tahayba. Marka diyaar garowga ramadaanka waxa ka niyatul khaalis inaynu niyad wanaagsan ku qaabilo iimaana wa ihtisaaban inaga oo u diyaara inaynu bisha go'aanay naga tahay inuu qofku soomo ilaahayna ajrigu kaga doonayo subxaanahu wa ta'aala ku raali gelinayo. waxaa ka mid ah inaynu ilaahay barino inuu inagu garab galo. qofku awood kastaba ha lahaado haddaanu ilaahay garab gelin subxaanahu wa ta'aala cibaadada dee shaydaankaa ka faa'iidaysanaya. ilaahay markaynu barayna waxaan leenahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. ilaahay wadaanu ku caabudayna gargaarna waa ku weydiisanayna suuratu alfaatixa. marka cibaadadii iyo isticaanadii gargaarkii ilaahay la gargaarsanayay ayaa isbarbar yaalla. bishan waxyaabaha u waaweyn inaynu ilaahay ka doonayno waxaa ka mid ah inuu ina cafiyo. alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum. marka innaguna waa inaynu iscafinaa ramadaan ka hor. dadkeenna wax dhex yaallaan ee iskhilaafay ee cuqdada isu haya waa in la iscafiyaa oo la issaamaxaa. ilaahay wuxuu leeyahay dadka cafiya miidaan idinku jeclayn inuu ilaahay idin cafiyo. markaad doonayso ilaahay inuu idinku cafiyo adiguna addoomaha cafi. waxaa ka mid a towbad wanaagsan oo miyir qabta. waxaa ka mid a tacallum axkaami ramadaan. bisha ramadaan axkaamteeda inaynu baranno, fadligeeda, waxay ku ansaxdo, waxay ku burto intaanay weli bilaabmin ee aan qaybi kaa khasaaroobin. cajaladaha iyo kutubta iyo muxaadaraadka iyo cilmiga ramadaan sii baro, waayo cibaadadu kama soo hadha cilmiga. marka arrintaasina aad bay muhiim u tahay qofka muslimka ah dadweynahan in lagu wacyigeliyo cilmiga ramadaan. marka dadku ay cilmiga bartaan ansixidii bay u dhowaanayaan, su-aalihii baa yaraanaya, qofku shakigii baa ka baxaya. waxaynu badinaynaa bishan iyada ah waalidka inaynu isagana cafis weydiisano, inuu samafallo ciddii waalidkiisu noolyahay iyo ciddii uu dhintayba. oo waalidku samafal buu leeyahay intii uu dhintay kadib, ama ha loo duceeyo oo sadaqaha loo bixiyo ama dardaarankiisii ha la fuliyo. siyaabo badan baa loogu samafalaa waalidku intii uu adduunka ka tag u geeriyooday kadib. waxaynu ku dadaalaynaa oo diyaargarowga ka mida raddu lxuquuqi ilaa asxaabiha min duyuunin wa ammaanaat. qofku ciddii uu wax ka hayay inuu u celiyo waxoodii, dayntii iyo xaqii lagu lahaa iyo wixii uu dad ka qaatay. waxaa ka mid a waxyaabaha aynu ku diyaar garoobayna musaaxabatu alakhyaar aladiina yuciinuuna cala alcamali asaalix. dadka wanaagsan inaynu ka ag dhowaano oo markaad doonayso shay inaad qabato si fiican u qabato, dadka si fiican u sugayaa lala saaxiibaa. markaa saaxiibkii xumaad is leedahay bishan wuu ku seejinayaa ka ag bedelo. waxaynu ku diyaar garoobaynaa dhowrka cishee hadhay qofkii qallo lagu leeyahay rag iyo dumarba inuu iska bixiyo oo uu u degdego. nebigu wuxuu uhi fadaynu llaahi axaqu an yuqdaa. daynta ilaahay baa ku habboon in loo degdego. markaa dadka qaarkood oo qallo lagu leeyahay dhowrka cishee hadhay waa inay ka gaadhsiiyaan. waxaynu isu diyaarinaynaa sidaynu bisha u raadin lahayn araggeeda. taxari ru'yati hilaali ramadaan almubaarak. oon dowladoon lagu hadlaynin iyo cid kale dee qofkii arki kale awood u lihi uu isagu isxilqaamo bal bishaa inuu eego. waxaa la filayaa habeenka khamiista meelaha
oo bishu ay soddon buuxa tahay waayo jimcada iyadu dee khamiista bishu ku buuxdaa markaa habeenkaa in loo dadaalo khamiista ee bishu ay soddonka tahay ma soddonkii baa dhammaanaya mise ramadaan baa bilanaysa waxyaabaynu ku diyaargaroobayna waxaa ka mid a bishu marka ay bilatay inaynu akhrino ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam sida uu tilmaamaya xadiidka tirmidi uu warinaya saxiixa nebigu waxaa rasuulku ahaabay leeyihi saxaabada ridwaanullaahi calayhim markuu bisha arka wuxuu odhanaya allahu akbar allahuma ahillahu calayna biاlamni waaliimaan waاssalaamati waalislaam والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله إلهي بشتنا إنه قبلتا نبتقليو يا إيمان إسلام نمو يا نبط إلى إيا أدقو نوافت يا ربي وحي أتشعشد هالكت بلي هاي ربي قاو يا ربي قاو وربنا الله وإلهي سبحانه وتعالى مركات دعاء النبي قال الآخرية يا قيمها بضن بشن وحيابها إنه ku fikirayna waxa kamid ah ma aynu ku dadaalayno inaynaan khilaafin xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa saxiixaynka ku sugan Bukhari iyo Muslim inuu nabigu yiri la bishan ha kala horumarina laba maalmood soomkood ama hal maalin soomki adigoo isla Ramadaan u dadaal marka labada cishaa u dambeeya biniyati Ramadaan looma soomeeyo iyo adigoo Ramadaan u dadaalaya rasuulku wuxuu raaciyay ilaa qofkii soo soomi jiray mooyaane qofkii qalla soomaya oo qalla waday ama isniinta iyo khamiisaha iyo soomayay qofkaasi wuu soomi karaa laakiin qof is yidhaahda maalinka soddonaad iyo maalinka 29aad iyo Ramadaan u dadaal sax maaha waa maalin soomkiisa uu xaaraantinimeeyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxaan isu diyaarinaynaa bashan inayna nadca jadwalan wa barnaamujan liistiqbaali hada ash-shahr bishan si aynu uga faa'iideysano nidaamkaaga waad dhigaysaa adduunyada intaa ka shaqayso waqtigaa waxbaad baranaysaa waqtigaa waad cibaadaysanaysaa waqtigaa qur-aankaada jadwal waa inaad samaysataa noloshaadu ay ka baxdaa wax iska soco iyo cashwaayadda si aad uga faa'iideysan karto waqtiga waxaynu bishan ku dadaalaynaa tajhiiz bacd al-adciya al-mudlaqa wad-diiniya meelaha qaarkood oo qofku uu aad uga dhiban yahay ama ummaddu ay aad uga dhiban tahay inuu rabbi barigeeda ilaahay uu barayo subxaanahu wa tacaala arrimaha inuu xalliyo inuu qofku cayinto oo idhaahdo 5 meelood 10 meelood ducada u badisay salafku samayn jireen oo dhib iyo dheef wixii dhib uu ka carraya addoonku iyo wixii dheef uu doonayo naftiisa iyo ummadaba inuu markaa calaamadsado waxyaabaha ilaahay aad u barayo subxaanahu wa tacaala waxa laga maarmaana bishan iyada ah inaynu isu kaashano ololayaal qaadno waxaa ka mid ah taqdiim camal ijtimaaci camal aynu iska kaashano bulshadeena aynu ku anfacayno inaynu ku dadaalo had iyo jeerna marka shayga la isku biiriyo bataa oo macna u sameeya dadka sida loo caawin lahaa tabarruc iyo afur loogu samayn lahaa iyo dadka baahan baahidooda sidii wax looga qaban lahaa intaana la iska kaashado rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiidkii saxiixa waxa uu ku yiri ahabbu an-naasi ila Allah yanfa'u dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay ka adoomaha anfaca cabaladana wuxuu ugu jecel yahay saddex arrimood qof muslim oo laga farxiyo kurba laga dulqaado deyn laga bixiyo iyo taafraad oo agaajo laga reebo arrimaha cabaladana kuwaas uu ilaahay ugu jecel yahay dadkana kuwaas ugu jecel yahay sidaa daraadeed inaynu noqonno ama ku dadaalo dadku ilaahay jeclaanaya iyo camarkii uu jeclaa aad bay muhiim u tahay waxyaabaha aynu ku dadaalayno waxa ka mid ah silatu rahim qaraabada inaynu xiriirino dadka had iyo jeer waqtigaas aad la isu eegaa ama in wax la isu faa'iideeyo marka bishan iyada dadaalkii loo sameeyay qaraabo xiriirinta oo cibaada iyaduna ahayde in iyana lagu dadaalo sidoo kale jaarka oo qof waliba dadka jaarka ah ka agdhow waa qaraabadiisii xadiis badan ba rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu kaga hadlay jaarkana iyo xaq ay isku leeyihiin sidee kuugu kala albaaba dhow yihiin wixii aad u heli karayso inaad iyagana qayb u baas garayso ugu tala gasho waxaynu dadaalaynaa salaadii shaciirada weyn ahayd calaamooyinka u ahayd bisha ramadaan taraawiixda inaynaan ka tagin iyadana aynu ku dadaalo waxaynu ku dadaalaynaa xamlatul masaajid masaajidada in ololo lagu qaado haddii ay tahay nadiifintooda iyo qurxintooda
iyo iftiimintooda intaba oo goobtii ilaahay lagu caabudayo iyadoo iftiimayso oo udgoonoo nuuraysa wakhtigani uu soo galo oo aan la dayicin oo istambarkiiya wixii masaajidada u baahnaayeen iyo gogolba dadka ganacsatada iyo maalqabeenku xaafadaha ay ka qayb qaataan iyo tuulooyinka waxaynu ku dadaalaynaa xamla tasyiin shaaric inaynu wadooyinkeena nadiifino nadaafadiina u dadaalo iftiimintiina loo dadaalo oo sida had iyo jeer ayaamaha qaran waxa ay yidhaahdaan ummaduhu dhulka loo iftiimiyo iyo dalka in bisha ramadaan loo iftiimiyo oo dadka cibaadada u soconaya aanay madow dareemin kudaafad dareemin meel walba wixii dhib laga qaado waxaynu ku dadaalaynaa alxamla alelektroniya dadka had iyo jeer isticmaalo agabkan wax lagu baahiyo baraha bulshada waa inaynu ololo qaadna aada u fara badanoo dadka aynu wax ku gaadhsiinayno khayrka xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa nebigu wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam qof qura inuu ilaahay sababtaada ku hanuuniyo geela cascas bay kaaga fiicanta man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacili xadiidkii muslimna wuxuu nebigu ku yihi qof khayr tusiya qofkaasi wanaaguu sameeyey in leegunbuu isagana ilaahay siinaya marka waxaad isku daraysaa bahdaada xagga khayrka iyo cidda aada ajriga ka heli karaysa inaad aada u badsato si aad u noqoto dhinaca khayrka nin tol badan ku leh marka qofba inta uu soo hanuuniyo ama uu hagaajiyo ama uu tilmaamo ama qalbigooda ilaahay iyo diintiisa uu soo celiyo ajrigoodu leeyahay marka dhalinyarada waxaynu u sheegaynaa filimada sawirada qaaqaawan waxyaabaha bilaa macnaha intoo iska weydaarataan bisha qofku waa inuu ku xisaabtamaa intee oo xadiid intee oo aayadood intee oo muxaadaro ayaad ama sheer garaynaysaa ama dadka gaadhsiinaysaa taasina waa arrin qofku inuu ku xisaabtamo u baahanoo kayd badan bay u dhigaysa dee markaad boqolaal qof soo hanuuniso ama khayr sabab ugu noqoto ee lagu yidhi intii ay khayrkii sameeyeen in la eg baad adiguna leedahay wax aada u weyn weeye marka arrintaana aad baynu u baraarujin lahayn waxaanay xidhaysaa meelihii sharka lagu baahin lahaabaa laga xoog badanaya la caabiyaya waxaa ka mid a xamladahaas xamlatu tacaam in afurkaas orana waynu usoo sheegnay lagu talagalo nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu calayh wasalam inta qofeed afuriso in adiguna aada leedahay soomka intii ay ka heleen ajrihaa in la eg xamladaha aynu qaadayna waxaa ka mid ah xamlatu ziyaarati almardaa waalmucawaqiin dadka dhiban baahiyaha gaarka ale cusbitaallada jiifa in iyagana la caawiyo loo gurmado haddii lasoo booqanayo iyo haddii wax loo tarayo iyo haddii laga farxinayo baahiyahooda in loo fiirsado kolba waxay u baahi badan yihiin lagala qayb qaato waxaa jira dad iska naafo ah oo haddana isku dayaya soomkii inay soomaan ha laga caawiyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu inoogu xusay xadiid saxiixu muslim ku sugan min xadiidi abi hurayra maalinta qiyaamaha qofka ilaahay su-aalu weydiinaya markuu xisaabinayo wuxuu leeyahy hebelow waan bukoodo imaad soo booqan raashin baan ku weydiistayoo imaad siinin sharaab baan ku weydiistayo cabitaano imaad siinin miyaanad ogeyn markaa addoonkii wuu jawaabaya wuxuu leey ilaahay rabbulcaalamiin baad caalamka oo dhankii iska lahaa sideen kuu soo booqdaa sideen raashin kuu siiya sideen cabitaan kuu siiya adiga cid walba iskala wey markaa wuxuu leeyay miyaanad ogeyn addoonkaygii hebel inuu bukoodo aanad soo booqan miyaanad ogeyn addoonkaygii hebel inuu raashin ku weydiistay ama cabitaan oo aanad siinin haddaad soo booqan lahayd ama cunadaa iyo cabitaankaa siin lahayd arrinkaa agtaydaad maanta ka heli lahayd oo waad u aayi lahayd marka arrintaasina aad bay muhiim u tahay labaataniyada arrimood ayaynu bishan ku qaabili lahayn markaa waxay u baahan tahay bishani in loo soo jeesto dadkii waxaa loo jeediyey karoone wax la yidhaahdo oo gaaladu halac badan baa hayo oo geerida aad bay uga baqaan oo noloshay aada ugu dadaalaan inagoo asbaabta qaadanayno o isilaalinayno dadaalayna haddana geeridaynu rumaysannahay iyo qadarka siday uga baqaan dee inagu uga baqi mayno wa axrasu nnaasi calaa xayaa noloshan unbay ugu dhantay ku dadaalaan marka dadkiiba meel baa loo jeediyey marka wax rabadaan iyo cibaadadii hadal haya runtii aad bay u yar yihiin sidaa daraaddeed waxaynu ku talagelaynaa bishan sidii aynu uga dhiishaa dhaansan lahayn khayr fara badanna aynu uga heli lahayn biidni illaahi tacaala diyaargarowgaana aynu u samayn lahayn allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء
اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.